munaasabadan oo ahayd mid ay xilka kula wareegayeen xubnaha cusub ee guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo xubnihii hore ee guddiga ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. madasha waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday madaxtooyada, xafiiska ra'iisul wasaaraha, xubno ka socday guddiga la socodka dastuurka ee labada aqal, guddoonada labada aqal ee baarlamaanka iyo mas'uuliyiin kale. wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin ayaana si rasmi ah xilka ugu kala wareejiyay. gudoomiyaha cusub ee guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka Burhaan Aadan Cumar ayaa ugu horeyn hadlay. sharaf weyn waxay maantay munaasabadan weyn inaan kula wareegay xilkii gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka anoo wakiil ka ah xubnaha kale ee guddiga oo walaalaha iyo halkan jooga oo guddigan loo soo magacaabay loona soo xulay oo process dheer ku soo maray. waxaan halkan ka cadeynayaa haddii la yiraahdo waxaan ku shaqeyn doonaa in dastuur Soomaali leedahay oo Soomaali hogaaminayso. gudoomiyaha guddiga la socodka dastuurka ee labada aqal Xuseen Yuusuf Iidow, agaasimaha madaxtooyada Xuseen Sheekh Maxamuud iyo wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin ayaa dardaaran u jeediyay guddiga cusub. waxaan aad u soo dhaweynayaa madashan ahmiyadda ay leedahay oo muhiim ay u tahay geedi socodka dastuurka oo aan qayb ka nahay. waxaan rajaynayaa inaan si dhow ula shaqeyn doono guddiga madaxa bannaan, sidoo kalena aan aad ula shaqeyn doono wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka oo dowladda Soomaaliyeed u qaabilsan geedi socodka dastuurka. dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan rabitaan siyaasadeed ayay la timid oo ma aragtay ahayd mid ka mid ah caqabadihii ugu weynaa ee dastuurka taramkii la soo dhaafay haystay dib u eegistiisa. ayadoo aan xukuumadda la dhisin ayuu madaxweynaha tiimkeenii dastuurka ka soo shaqeeyey nagala niqaashayay caqabada ugu weyn ee dastuurka haysatay, annagana dabcan tii ugu weyneyd oo haysatay oo ahayd rabitaan siyaasadeed iyo arrimaha wadaxaajoodka u baahan in miiska wadahadalka la keeno, laga wada hadlo, laga heshiiyo. maanta waxaan maraynaa alxamdulillaah bilow fiican. marka dalka dhan ayaa qabya ku jira. mar hadduu dastuurkii uu qabya yahay, dalka ayaa qabya macnaha waaye. marka in dalka qabyada laga saaro, dowladnimada qabyada laga saaro, waa in dastuurku dhammaystirmo. wax kale oo haray oo cudurdaar ah ma jiraan. runtii sida la tilmaamaba fursad ayay Soomaaliya haysataa. fursaddaasoo ah waxa la yiraahdo ka go'naanshaha siyaasadeed ee mas'uuliyiinta iyo madaxda dalku ay ka go'an tahay. dad qualifier u ah oo shaqadan qaban kara oo khibrad u leh oo yaqaana. gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo golaha shacabka Sacdiya Samatar iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa gabagabadii munaasabadda soo xiray. inaad Soomaaliya dhan aawada matashaan ma aha xubnihiina intaas waddanka 4.5 uu yahay, laakiin Soomaali oo dhan idinka ayaa matala. qof kasta oo maqan kaliya waxaan rabaa oo kale inaan ku sii daro dhaqanka iyo xeerka Soomaaliyeed oo wanaagsan in aan mar kasta u ahaataan hormuud oo ay noqoto guddiga